بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم magacaygu waa Bashiir Xasan Nuur afhayeenka dalka Mareykanka ee xisbiga ka anigoo ku hadlaaya bahaweynta iyo taageerayaasha xisbiga ka ee dalka Mareykanka halkan oo ay joogaan qaar kamida madaxda xisbiga ee dalka Mareykanka iyo North America hawlwadeennada iyo taageerayaasha xisbiga waxaan doonaynaa inaan kaga hadalno laba qodob halkan oo aanu ku brief gareyno dadka bahaweynta xisbiga ka iyo dadka reer Somaliland iyo cid kastoo hawshan la socotay oo danaynaysay qodobka koobaad waxa weeye waxaan sugaynay inay halkan yimaadaan wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga mudane maxamuud xaashi cabdi oo uu kamid ahaa sidoo kale hogaamiyaha xisbiga mudane maxamed aadan qabyo tire gudoomiye ku-xigeenka cabdilaahi habane iyo maxaan ku dhahdaa xubno kale wafdigaasi way yimaadeen dalka Mareykanka waxay ka soo degeen magaalada Minneapolis airportka MSBI ayay ka soo degeen markii ay soo degeen ee wafdiga ay yimaadeen ay soo xaga dhigteen ay soo galeen airportkii waxa dhacday in ay qaar kamida wafdiga ay ka khaldameen fiisahoodii markii la process gareeyay oo ahaa e-visa ay ka soo goosteen online halkii ay heli lahaayeen actual visa sidaas daraadeed markii ay isku celiyeen waxay go'aan ku gaadheen wafdiga gudoomiyaha iyo wafdigiisu in aanay kala hadhin ama ay soo wada degaan ama ay wada noqdaan waxaanay go'aankoodii noqday maadaama aan la sii deynin xubnihii la socday in ay wafdiga iyo gudoomiyihiisu noqdaan gudoomiyaha iyo wafdigiisu noqdaan gudoomiyuhu waxa uu soo diray oo dadkii sugayay ee soo dhaweynaya uu soo diray hogaamiyaha xisbiga maxamed aadan qabyo tire dadkii waa la hadlay waxaanu u sheegay in arrintaasi dhacday waxaanu ku qanciyay dadkii inay haddii ay ka dhigaa iska noqdaan saas daraadeed in ay noqdeen oo ay insha Allah xilliga ay soo noqon doonaan dib ka soo sheegi doonaan qodobkaasi waxa uu la xiriira gudoomiyaha iyo wafdiga hogaaminayay imaantigooda qodobka kale aan doonayna inaan ogeysino waxa weeye waxaan shaacinay xaflad lagu soo dhaweynayay wafdiga oo ka dhacaysay magaalada Minneapolis Convention Centerka oo ku waqtiyeysnayd 8 bisha November sabtidan imika soo socota waxaanu dhammaan casuunay dadka reer Somaliland iyo taageerayaasha bahaweynta xisbiga ka iyo sidoo kale maxaan ku dhahdaa saaxiibada Somaliland saas daraadeed maadaama ay gudoomiyaha iyo wafdigiisa noqdeen waxaan dadkii si xushmad iyo karaamiyo sharaf ku jirto u ogeysiinaynaa oo uga codsanaynaa inay nala qaataan in xafladaas ay dib u dhacday dibna laga soo waqtiyeyn doona marka ay go'aan ku gaadhaan wafdiga gudoomiyaha iyo wafdigiisu inay soo noqdaan